Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaynu sii taabagelin doonaa oo aynu sii wadi doonaa kooraskeenii aynu maalintii dhaweyd bilownay ee ahaa Photoshopka, kaasoo aynu maanta dhigan doono qaybtii labaad amba gabagabadii overview-ga kooraska. Intaa waxaa ka dambeeyana waxaynu toos u gudageli doonaa casharadeena Photoshopka oo aynu ka dhigan doono ilaa iyo heerka u dambeeya. Waayahay, horaana loo yidhaahday goor gaaban hadalkeedna gaaban. Haddaba maanta casharkeena aynu toos u gudageli doonaa. La socod wanaagsan baan idin rajaynaya insha allahu tacaala. maalintii dhaweytoole waxaanu soo dhiganay tooliska inta sare, laakiin maanta ma wada qaadanayno intan dambe, waayo tooliska qaar waxaynu ku dhigan doonaa casharo gooniya oo aan gooni u dhigi doono, kuwaas oo ka ballaaran oo haddaynu isnidhaahno xalqadeena maanta ku sharaxa tooliska oo idil waqti dheer bay qaadanaysaa iyo xalqaduna aad bay u dheeraanaysaa. Markaa anigoo taa ka hortegaya xalqad labaad baan u samayn doonaa insha allah oo taxanaheenan ka mid a. Maantana waxaynu dhigi doonaa inta kale ee tooliska ah. waayahay, toolkeena koowaad ee maanta soo qaadan doonaa waxa weeyaan brush toolka, kaasoo in wada eegi doono waxyaabaha uu qabto iyo waxa uu anfac leeyahay iyo waxa aad qaban karto markaad isaga isticmaalayso. brush toolku horta waa brush aad u muhiim ah, kaas oo kaa caawinaya inaad wax kaladhayso, oo tusaale ahaan markaad doonayso inaad meel cayiman aad kaladhayso waad isticmaali karaysaa, laakiin isaga inta badan lama isticmaalo keligii, waxaa la isticmaalaa tooliska kale sida selection tooliska, kuwaasoo kuu dhib yareynaya inaad si fudud aad u kaladhayso adigoon qaladaad badan aan ku dhicin. Laakiin markaad keliga isticmaalayso waxaa laga yaabaa in meelo badan oo aanad doonin inaad gaadhsiiso khadka inuu kaa gaadho. Walaan isleegna saa loo isticmaalayo selection tooliska iyo brush toolka wada socda. Haddaba marka koobaad waxaad soo qaadanaysaa selection toolkaas leedahay, aad buu kuugu fudud yahay oo waad isticmaali kartaa si yaroo dhib yar. Isla markaana waxaad ku calaamadinaysaa ereyada aad doonayso inaad midabka mariso amba aad kalarka ka bedesho. Markaad intaas samayso kadib ayaad waxaad soo qaadanaysaa brush toolkii, isagana waad marinaysaa ereyadii aad selection toolka marisay. buu si yaroo dhib yar kaaga bedelaya midabka, isaga oo aan kaa gaadhsiin hareeraha kale amba intii kale aad doonaysa inaad ka ilaaliso. Wakaas waad arkaysaan baan filayaa sidaa dhibta yar leh ee aan backgroundkii uga bedelay anigoo aan juhdi badan iyo dadaal badanba aan ku bixin. Waayahay, intaa kadib waxaynu u gudbi doonaa toolkeena labaad. Horta intaanan brush toolka ka gudbin, waxaa kusii hoos jira pencil toolkaas oo isaguna midabka un ah oo sida loo midabeynayo un ah, laakiin isagu sida qalinka oo kale kugu midabeynaya. Inta gebigoogba meesha ku jirto dhaniba gebigoogba waxa weeyaan midabadan baad wada isticmaalaysaa, laakiin mid walba qaab gooniyu u midabeynaya. Kan kale ku xiga isaga waxaa la yidhahdaa history tool, oo wuxuu kusoo celinayaa sidii uu sawirkaagu ahaa markii koowaad ee aad aanad waxba ka bedelin. Markaa meelaha yare qaladku uu kaaga dhaco iyo meelaha yare kaa qaldamaa ayaa la isticmaalaa si aad sidii hore ugu celiso, isla markaana aad qaladkaaga u saxdo. Waad arkaysaan baan filayaa sidaa yare dhibta yar loogu soo celiyay sawirkeena siduu ahaa markii koowaad. Adigana waxaa lagaaga baahan yahay in haddii ay wax kaa qaldamaan aad isaga adeegsato si yaroo dhib yar uu kaaga caawiyo. Aynu ka gudubna haddaba. Kan kale ku xiga waxaa la yidhahdaa eraser tool, oo waxaa loo isticmaalaa markaad doonayso inaad sawirkaaga wax ka jarto. Marka toolka dhexdiisa waxaa kusii jira 3 qaybood, 3daa qaybood oo kala duwan, mid walbana shaqo gooniya uu qabto. Toolka koobaad waxaa la yidhahdaa eraser tool, oo intuu masaxo sawirkaagii ayuu midab kale ku bedelayaa. Toolka labaadna waxaa la yidhahdaa background eraser tool, oo isaga waxaa la isticmaalaa markaad doonayso inaad backgroundka sawirkaaga iska masaxdo. Ka saddexaadna waxaa la yidhahdaa magic eraser tool, oo isagu wax waloo isku wada midaba ayuu goosanaya markii aad 1 click siiso. Bal saddexdoodaba aan isla wada eegna. Wakaa toolkii koobaad, soo ma wada arkaysaan wax waloo la wada dul mariyo oo u wada masaxaya, xabad kama reebayo. Kan labaadna isagu backgroundka haddaad doonto sawirka mari, waxaad marisaba isaguna wuu goosanaya, laakiin backgroundka buu goosanaya isagu, laakiin midab ma marinaya sidii kii hore oo kale. Kan saddexaadna wax waloo isku wada midab baleegimka backgroundka ma aragtaa, wakaa gebigiisiiba wada goostayba. Intaa yar naqan buu ka tegayo, intaa yarna haddaan mar labaad saarno bale wakaasi tiradna waa kaa goostay. xabad bay isagoo kama tegayo wixii isku wada midab oo dhan buu wada goosanaya. Kan kale ku xigana waxaa la yidhahdaa paint bucket tool, oo waxaa loo isticmaalaa isaga markaad doonayso inaad wax kaladhayso, oo daasada yar baad soo qaadanaysaa, xaggaasaad ku shubeysaa. Midabkii dhankaa kugu jiray ayaa mar walba maraya dhankaas. Markaad doonayso inaad midab ka bedeshana xagga yar baad klik siinaysaa, waxaa kuusoo baxaya baalka yar midabadu ku jiraan. Midabkaad doonaysid unbaad ka dooranaysaa, isla markaana baaldigii baad kusoo noqonaysaa. Baaldigiina midabkan cusub aad kusoo bedeshay unbuu baranaya sawirkaagii. bale wakaas haddaba aan isla eegnay. Iminka baaldigii baan kusoo noqonaynaa. Baaldigii waa kan soo maha. Horta okay aan siinay. Okay waan igaan idhaahnay maaragta. Wakaa baaldigii. Maanu midabkii toos u bedelin. Wakaa
midabka kolba dhankaas maad ka bedelaysaa midabka yar ee doonayso. waayahay kan kale ku xigana waxaa la dhahdaa waxaa la dhahdaa buller tool weeyaan, oo intaad saarto kolba bullarba ayaa maraya. imika haddaad doonayana ninka wejigiisa aan bullar mariyo ayarun baan kilig baan siinayaa, xaggaasun baan dul marmarinaya, ma dul marmariyey bale wakaas imika maanu bullar saarin wejigiisii. imika wejigiisii macaadi baa la arkaya sidii markii hore muu yahay, waa may. markaad doonaysa inaad bullar saarto sawirkaagana kolba bullar toolka yar baad isticmaalaysaa. markaad doonaysa inaad ka noqotona control plus z baad taabanaysaa, amba history toolkii aan imika soo dhiganay ayuun baad marinaysaa, isagaa sidiisii hore ku celinaya. waxaynu sii wadana haddaba casharkeena imika. kan kale ku xigana waxaa la idhaahdaa dot tool baa la dhahdaa, oo wuxuu kaa caawinayaa inaad sawirkaagii aad midabkiisa caddayso. mar walba sawirkayga kilig siiyo wuu sii cadaanaya, brightka kusii badanaya. oo mar walba sawirkan toolka waxaa loo isticmaalaa inaad brightka ku badiso sawirkaaga markaad doonayso inaad brightka badiso. imika meereyga kaasi maxaad moodaa cadceed buu ekaaday soo maaha. waayahay haddii kale midabka lidkiisa waaba kan ka hooseeya, oo isaguna wuxuu kaa caawinaya inaad midabkaaga madow ka dhigto. mar walbaad kilig siiso wuu sii madoobeynaya ilaa iyo xaddigii markii hore uu ahaa uu hoos u dhaafo. oo balewa kaasi imika maxaad moodaa, miyaanad moodin in xabad yar dhuxul kasoo dhaashatay. waayahay tooliska isku lidkaana kolba midkaad u baahan tahay. dad doonaysa inaad brightka in yar ku darto in yar umaad ku daraysaa, laakiin laskuma badiyo alaaba. marka kale doonaysa inaad madow ka dhigtana in yar u madoobeeyo, ha isku badin baan ku odhan lahaa, waayo haddii kale sawirkaa kaa fool xumaanaya. waayahay haynu sawirka sidiisii hore kusoo celina. haddaba history toolkaasaan soo qaadanaynaa oo isagaynu marinaynaa. maanta history toolka kama dhammaanayno, waa idinka arkayay. wakaa sawirkii sidii hore inoogu soo noqday. toolka kale inoogu xigaya waxa weeyaan toolka rectangular toolska iyo bahdiisa, kuwaasoo kolba toolka shapeka aad doonto aad kasoo qaadanayso. haddaad doonto 4 geesle amba leydi, 2 jibaarane, 3 xagal, ka doontaad kasoo qaadan kartaa. xataa mid 4 geesle, mid 5 geesle, 6 gees, 7 gees, 8 gees, 9 gees, 10 gees, noocaad doontaad ka dhigi kartaa. waxaa kaloo soo gelin kartaa xataa sawiro shimbiro kale, geed sawir, aduu sawirka doonto ayaad soo gelin kartaa. marka waxaan isla wada eegnay balse marka koobaad kaas waxa weeyaan shaxankii aad ku sameynaysaa. haddaad doonto 4 geesle amba leydi iyo 2 jibaaranaba uu noqonaya. mar haddaad yaro ballaariso wuxuu noqonayaa leydi. haddii kaloo aad soo yaro koobtood sidaas tidhaahdo 4 dhinac isku seegtana wuxuu noqonayaa 2 jibaarane. oo toolkaasunbaa labadaba u kala qaybsama. kan kale ku xiga waxa weeyaan leydigii amba 2 jibaaranihii oo hareeraha laga soo xooday, kaasoo hareeraha aduu kasoo yaro janjeera. kan kale saddexaadna waxa weeyaan goobadii, oo iyadu waa caan. kolba goobadaasna saa doontaad u sameynaysaa, isagana waa kaas. haddaad doonayso 4 geesle iyo 3 geesle intaba kanunbaa laga dhex sameynaya, laakiin hal step baa ku xiran. marka imka soo maaha kaas imse gees buu leeyahay 1 2 3 4 5 6 gees buu leeyahay maaragtaa. markaad doonaysa inaad geesihiisa bedesho, xaggaa yare ay 6 gees ku qoran tahay ayaad mar 3 ka dhigaysaa. soo 3 xaggaa kamaan dhigin. imika markaan saa u sawiro 3 gees le ay sawirmay. markaad doonaysa inaad bedesho xaggaas umaad ka bedelaysaa. xitaa haddaad doonayso mid 10 gees le inaad ku bedesho, 10 gees umaad xaggaa ku qoraysaa. bale waa kaas imika kii 10 gees lahaa inoo sameeyey. kolba saad doonayso, haddaad doonayso mid 9 gees le, mid 8 gees le, mid 6 gees le, adun bay kugu xirantay. tirada aad doonaysa inay xagaladaadu noqdaan ayuunbaad xaggaa gelinaysaa, isaguna uu kuu sameynayaa. laakiin waxaa inta ugu badan aad meelaha ku aragtay ka 6 geesoolaha oo dadkuna isticmaalaan sawirradooda soo dhex geliyaan. ka 6 geesoolahana haddaad doonayso waa isticmaali kartaa. haddaba intii hore oo dhan waynu soo sameynay. imika hal midoo keliya tunbaa inaga maqan. halka mid ay naga maqanna waxa weeyaan sidee baan usoo gelin karnaa sawiro iyo aduu waxaan ujeedaa shimbir iyo shaxan adoo aan meel kala tegin oo aan sawir soo qaadan ee tooliskaagan dhexdooda uun kasoo qaadanaya. xagga ugu hooseysa markaad right click siiso tooliska, waxaa ku taala meel yar ay ku qoran tahay custom shape tool. xaggaasaad taabanaysaa. ma taabatay waxaa kusoo baxaysa meel yar oo sidan oo kale xaggaasaad hadaba xaggaas ma kusoo baxday. scrollkaad hoos u taabanaysaa. xaggaas scrollka hoos ma u taabatay, waxaa kusoo baxay dhirtii iyo geedihii iyo waxba aniga dhanka iga soo baxay maaragta. sugan wiineeyo horta welibana ballaariye wakaa soo ma aragtiin. haddaba kaas haddaad doonayso inaad geed sawirto, isagaad kilig siinaysaa. ayars ma dhibaysid, xaggan unbaad saa u jiidaysaa. wakaa geed buu inoo sameeyey maaragta. haddaad geedkaas uu ku cajabin waayana mid kalaad soo qaadan kartaa oo waxaad odhanaysaa geedba ma doonaye, waxaan doonayaa xayawaan duurjooga. bal awrkaaba inoo soo qaad. hadaynu Soomaali nahay dee iska geljecel baan nahay. awrkaaba inoo soo qaad. awrkaa kilig ma siisay. ayarunbaad xaggana saa u kala jiidaysaa. wakaa awr noo samarayba. soo ma aragtiin. haddaynu ku celinano wakaa waaba awr dhan oo dhankaa taagan. imika baleeg maxaad moodaa, miyaanu awr caadi ahayn. aduu shaybiskaad doonayso. imika intaas waa 2 midho keliya taanu ka tilmaannay.
laakiin kolba kaa doonayso waxyaabo badan baa ku jiro aan maxaa ahaaday awr iyo geed kaliya ku koobnayn oon xayawaan kaliya xataa ku koobnayn, xataa xayawaanka noocyadiisa kale ayaa ku jira oo ubaxyadii baa ku jira oo qaybtan hoose iyaguna aduu kolba kaa doonaysa aduu baa ka dooran doona. Waayahay maanta xalqadeena xaggaasaynu ku joojin doonaa, waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena. Fadlan haddii muuqaalku ka cajabiyey subscribe iyo like-ta ka ilaabin, una sheer gala asxaabtaada cidda aad doonaysa inay ka faa'iidaysato insha allahu tacaala. Idinkana waxaan idinkaga tegi doonaa maanta salaanta islaamka, waxaanan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.